nebigu saxaabigii qur-aanka ku dheereeyey ninkii tukanayey mucaad ibnu jabal baa qolo tukiyo qur-aankii buu yaro dheereeyey nin baa iskaga baxay markaa malaa dee degdegsanaa dabeetana intuu halkaa goysa iska dhigtuu markale ayuu tukaday keligii dabeetana uu iska tegey oo waxkii mucaad loo sheegayna waxay yidhahdeen warkaas waa munaafiq eraygiibaa ninkii gaadho uu ka xanaaqay dabeetana nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii intuu salaaddii nagu dheereeyey ayaanu ka baxnoo tukanay markaanu tukanayna waxay nagu yidhahdeen munaafiq baa tahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu u yeedhay mucaad buu ku yidhi afataanun anta ya mucaad war mucaadow dadka diinta miyaad ka fitnayaysa yani waxa weeyaan salaadaan dheeraysanaya waa qurux badan tahay adigu keligaa marka tukanayso dheeraysan mooyaane albaqro ku tuko adiga keligaa markaad tahay ama masaakiin dana wada leh oo qaar xanuunsanayaan oo qaar dhibaa haysatay markaad tukanayso waa inaad ku tukisaa suwar gaagaaban iyo qur-aan kooban inaad ku tukisaa dadku danuu wada leeyahay mashaakil baa wada haystaa sida awgeed inna minkum munafiriin buu nebigu tilmaamaya idan is-adadkayntu dadka diinta way ka fogaysaa dadku inay islaamnimada qabsadaan way fool xumaysaa waa midda labaad cimrigeedu wuu gaaban yahay waddada qardajeexa haddee dadku ma wadi karo muddo yarun baad qardajeexa wadaysaa oo waxaad soo baxaysaa maxay kuwii lalahaa laa ardan qatac walaa dahran abqa safar wada socdaa midi faraska aada u garaacay dabeetana waa idinka dheeraynayaa buu yidhi siduu faraska u erayaa kawluu go-ay dabeetana faraskii baa naftu ka baxday magacilaa isagoo fadhiya u yimaadee waxay idhaahdeen dhulna maad jarinoo meeshiina maad gaadhin faraskiina dhegada kamaad daynin yacni faraskiina ma noola meeshiina maad gaadhin weeyaan haddaad meel cidla aad derderto sidaa diinina kuma dhisanto aadna maxay waad lu go-aysaa nebiguna wuxuu leeyahy calaykum min alacmaali maa tutiiquun ceebta saddexaad ay leedahay waxa weeyaan inta badan haddaad tataruf aragto meel loo xadgudbay xuquuq la dayacaa jirta iyada xuquuq la dayacay baa jira saxaabi baa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada yaraa ka mida baa guursaday dabeetana wuu cibaado batay habeenkiina wuu istaagaa maalintiina waa soomaa waana aroos nin aroos oo habeenkiina salaadun u taagan subaxiina maxay sooman goorbay gabadha isarkayaan markaa maalintiina waa soomanay buu leeyahay habeenkiina uu tukanayahay gabadhiiyo khaati joogta aabaheed u yimi inanka aabihiiyo wuxuu jiri bal ka warran nicma rajul bay tiri cabdullaahi ibnu camr abcaasa nin isagaa u fiican haye habeenna waa taagayay bay tiri maalinna waa soomay waa maagay odagiyo nebigaa loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi war yaa cabdullaahi soomaan maqal inaad sidaa yeesho haa buu yidhi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war naftaadu xaq bay kugu leedahay ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay rabbigaana xaq buu kugu leeyahay icti kulla dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa sii marka haddaad aragto qof meel ku xadgudbay xuquuq kaloo dayacay baa jira islaamnimadu waxay tilmaamaysaa maxay qofku inuu wixiisu ictidaal iyo baalaans ahaado maalan saxaaba dagaal gashay waxay arkeen nin la raacraacaya saxaabadiyo aada u laynaya laba nin baa isqanjiirsado waxay dhaheen waa ninkaa ragga ka dhicin waa usaamata bnu zayd iyo saxaabi kaloo ansaariya ninkii dadka laynayey markay soo gaadheen ay seefta la dul koreen ayuu ki yidhi laa ilaaha ila allah waa goob rag isku hayo la dagaalamayo safka gaaladu awal ku jiray waana saxaabada dhulkuu dhigdhigayey waxbuu laynayey markii seefta lala dul yimina wuxuu bilaabay maxay laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo ansaarigii seeftiisii wuu ka daayay markaa usaama nin dhowr iyo 10 jira buu ahaa ha ka dhegaysanin buu yidhi wuu ku gabanayay warankuu hilaacsi warankuu xagga kale ka dhigan dabeetana ansaari wuxuu yidhi war ninkani de waa shahaadeen maxaad u dishay wuxuu yidhi war wuu kuu gabanayay marka ragis haya buu laa ilaaha illa allahda ku dhawaaqayay markii hore ma lahay kaana mutacawida saasa xadiiska saxiixi sheegaya wuxuu yidhi war waa ku gabanayay qadiyadii baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay nebigu wuxuu ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah war ma markuu laa ilaaha illa allah yidhi baa dishay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa rasuula allahi kaana mutacawida ilaahay rasuulkiisiiyo wuu gabanayay wuu ku dhuumanayay laa ilaaha illa allah jirta ma ahayn ee markuu arkay seefta in lala dul maray ayuu ku gabaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celceliyey aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah war ma isagoo laa ilaaha illa allah labaa dishay markaasuu isna ku celiyay ilaahay rasuulkiisiiyo wuu gabanayay nebigu wuu ku celiyey ilaa uu saxaabigii leeyahay waxaan tamaniyey
inaanan horaba u islaamin maanta islaamnimadaydu bilaabanto yani qofku dee marka uu islaamay dembigii hore o dhan waa laga cafiya soo maa inaanan maanta islaamnimadaydu bilaabantaan tabaniyey buu nebigu leeyahy alayh salaam ayuu saxaabigani leeyahy riwaayaadka qaarkood nebigu wuxuu ku yidhi ashaqaqta qalbah maadaa qalbigiisa jeexay oo eegay wuxuu uga dan lahaa tolo masax bay ka ahayd mise qalad bay ka ahayd maadaa qalbigiisa dilaa eegay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam meesha maxaa ku jira waxaa ku jira qofku xataa isagoo jihaadku ku jira uu xaq yahay buu meel cidlaa ordi karaa khaalid bin waliid baa baxay oo ciidan wataa dabeetana niman layshayo gaalaaba oo lagu duulo nimankiibaa waxay idhahdeen saba'na carabta waxay u isticmaali jireen yani diintii hore waa ka baxno tadambaanu galno saba'na markay yidhaahdeen ayuu wuxuu ku yidhi khaalid nimanka war nimanka laaya buu yidhi waxaana ka dhegaysanayay aslamnaa bay garan waayeen dabeetana saba'naa bay yidhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markii warka loo sheegay wuxuu ku yidhi allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu khaalidkii dagaal tegay jihaadku jiraga ayuu nebi maxamed wuxuu leeyahay ilaahayow wixii khaalid sameeyey anigu beri baa kaaga ah yani shareecada islaamiga gafku waa gaf ama gaal ha lagu gafo ama muslim ha lagu gafo shareecada islaamiga gafku waa gaf mar kastaba waa ninkani dhaalimo bannaynaysa inaad adna dulmiga samayso waxaan ku soo koobaya cisho soo noqon maayo iminkaana diin dhiibaya jumladoo dhane waxaan ku soo koobayaa waxa weeyaan alictidaal diintu waxay u baahantahay qofku inuu muctadil noqdo muctadilku waa laba mid dad xadgudbay oo inta la dulmiyey iyana xadgudbay iyo dab intii kaloo iyana diintiiba inta iskaga tagtay suuqa gashay labadaa midna sax maaha waa yeelkuna kolba dhan bay u cararaan aabayaashuna inanku yuu iga gelin qoladaa siday u leeyihin buu suuqa u diraa marka war suuqa in la galaana diintu ma qabto in la tadarufana diintu ma qabto meeshii cadaalad iyo cilmi iyo xorriyada taallana tadaruf kama yimaado haddii la rabo tadaruf in la saxana waa in dadka la siiyaa xorriyad waa inay helaan cadaalad waa in la helaa aqoontu inay faafto saddexdaa shay haddii la helo waxaa cagsigooda ah dulmi iyo jahli iyo istibdaad baa cagsigooda ah waxa aan ku soo koobayaa markaa wuxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaq war diintiina ku xadgudbina la yidhi ahlukitaaba inana waa sidoo kale waxaynu u baahanay markaa ayo ahlaxiba dhulkan baad joogtaan waa dhul dhaqan iyo diin ba idinka gedisan waxaa u baahantihin inaydan labadaa dacal u cararine ka dhexe ee diinta siraadka mustaqiimka ah ee inaad diintiinana ku sugnaataan dhammaanteedna aad rumaysaan diinta badhna aydan qaadan badhna aydan ka tegin xuquuqda ilaah iyo rasuulkiisu idin fareenna inaa ilaalisaan ama xaq gaal ha noqdo ama xaq muslim ha noqdee وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين